inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada galmudug ay ka jirtay deganaansho la-aan siyaasadeed oo sababtay in madaxda maamulka kala fadhiistaan degmooyinka dhuusamareeb iyo cadaado kadib markii laysku maandhaafay fulinta qaar ka mid a qodobadii kasoo baxay heshiiskii ahlu sunna wal jamaaca iyo galmudug ee ka dhacay jabuuti iyo muqdisho oo garwadeenka ay ka ahaayeen xubno ka socday beesha caalamka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sababay khilaaf cirka isku shareeray kala qaybsanaanta siyaasadeed ee madaxda maamulka ayaa sababtay xilka qaadis qaar ka mid ah xubnaha sare ee madaxda iyo doorashooyin lagu buuxinayo boosaskii la sheegay in laga qaaday xubnihii waxaana 14kii bishan dhuusamareeb ka dhacday doorasho gudoomiye baarlamaan oo horey xildhibaano ku sugan dhuusamareeb ay xilkii uga qaadeen halka cadaado xildhibaano ku sugan ay iyana sheegeen in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha waxaana taasi ay keentay in 20kii bishan xildhibaano ku shiray cadaado ay iyana madaxweyne u doortaan Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo VOA la hadlay ayaa qaba in doorashadiisu tahay mid sax ah doorashadii ka dhacday magaalada cadaado runtii waxay ahayd mid aad iyo aad u martay wadooyinkii sharciga ah ee wax lagu dooran jiray taasoo ay ahayd doorasho xor ah doorasho ay ka soo shaqeeyeen guddi farsamo oo tayo leh oo aqoon leh oo doorashooyinkii hore qabtay runtiina waxay u dhacday si nabadgelyo ah oo weliba kalsooni gelisay shacbigii ku noolaa magaalada cadaado iyo dhammaan deegaanada galmudug abshir diin cawaale oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa qaba khilaafka siyaasadeed ee galmudug inuu yahay mid meelo kale la kaga yimid waxaa filayaa dadka Soomaaliyeed xilligii mugdi ay ku jireen way soo dhaafeen waa fahamsan yihiin waxa ka soo dhacaya waxay sal ku leeyihiin iyo meesha ku jeedaan nin walbana waa u caddahay waxaan inay yihiin coordinated waxyaabo isku xiran inay yihiin khilaafkii hore loo abuuray oo ka dhacay oo la yiri musharax iyo waxbaa jira iyo dad baa la siday iyo midka haddeera waa wax coordinated isku xiran oo isdaba jooga wixii xamar ka dhacay iyaguna ay kuleeyihiin raad oo waxyaabihii weeraradii raggii mas'uuliyiinta loo geystay dadkii lagu laayay meelaha waxaasoo dhan wax isku xiran weeye waxayna u muuqanaysaa inay tahay ma garanaysaa ay ka dambeeyaan rag mas'uuliyiina oo matalaya qaranka Soomaalida Baasto madaxweynaha lagu doortay cadaado ayaa sheegaya in uu ku yimid rabitaan shacab ma isku shiishareereysay way qaboobaysaa layr macaan iyo nabadgelyo helaysaa shacbigu kalsoonidu helayaa mas'uuliyiinta joogta ee galmudug ee shaqaynaysana si karti iyo hufnaan leh ku shaqaynayaan anigoo iyadoo meel ilaa aan ka bilaabay meeshii ugu sarreysay galmudug aqoonsi caalami inay yeelato sababayna doorashada ay doorteen si kalsooni inaan ugu adeegaya la igu doortay marka wax kala qaybsanaan ah iyo wax shaki ah midnaba kama imaanaysa waxaa ka imaanaysa guul galmudug wanaag galmudug meesha aad leedahay halkaasaa lagu matalayaa iyo golaha shidaka iyo waxaas aad leedahay goluhu golo dowlad ku xiran maaha golo ummad Soomaaliyeed matalaya masiirkoodna maaha golo Soomaali danteed iyo maslaxadeed ka shaqaynayana maaha 30 sannadood kadib koox diidan dowlad Soomaaliyeed inay dhaqaaqdo shacbi daalanna is-hortaag ku samaynaya taladooda iyo tashigooda wax caqli iyo wax caqabada oo aan uga baqayno lama arkay galmudug waa jirtay waana jiraysaa wayna shaqaynaysaa madaxda iyo mas'uuliyiinteeda iyo dadkeeda ayaana hore u marinay abshir diin cawaale xalka siyaasadeed ee galmudug sidan ayuu u arkaa wallahi anigu waxaan isleeyahay waxa loo mali karaa Soomaaliya dhan baaba dhibaato isaga jirto oo u baahan in wax loo xalliyo galmudug kaliya kuma socoto arrintani wadanka koone ilaa ka koone ku socdo oo iska magaranaysaa siyaasad markii la abuuro maamulkii federaalka la abuuraba fikirka soo baxaya uu yahay dadka mas'uulka ah inay qaarkood aan ilaahdo ama mas'uuliyiintaba inay ku fakeraan
sida doorashooyinka dambeeto ay ugu u maarin lahaayeen inay iyagu kusoo laabtaan meesha taasaa sal u ah baahida iyo dhibaatada iyo in magaranaysaa khilaafuun iska socdo oo aan dalkii danihiisii iyo dadkii amnigii horumarkii deganaashihii dalka aan waxbaba laga qabanin laysku howlahaas yani mucaaradda meesha lagu xallin karaana waa la garanayaa waxay u baahan tahay soomaaliya inay maaragtay runtii fikir labaad u noqoto oo siyaabihii ay wax u samaysanaysay oo maamul u dhisanaysay aysan ahayn wixii adduun iyo aakhiraba xalaasha ahaa oo la rabay in wax lagu gaaro marka in dib loo tashado oo lasoo gaagaabiyo deegaamada hadda goboleedyada la sameeyey waxaa qabaa tuulooyinkee loo laabto iyo degmooyinka oo ay iyagu ay ka soo unkanto dad danaynaya deegaankaas oo danihiisa u adeegaya inay yimaadaan oo kor usoo kacaan oo yimaadaan miiska kore oo dadku isugu imaanaya ama dadka midnimadiisa lagu xoojinayo laakiin hadda waxaad moodaa furfur iyo kala daadasho midnimadii mooyaane wax isku xidhida oo soconaya hadda aysan sii jirin xildhibaan cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo dhowaan waraysi siiyey VOA ayaa sheegay inuu socdo dadaalo lagu xalinayo khilaaf laguna ballamay shirweyne nabadeed oo lagu qaban doono magaalada Gaalkacyo. waxaanu leeyahay waxaan meesha u nimidba waxaa ka mid ahaa dabcan madaxweynaha halkan waa ugu nimid dee madaxweynaha inaan kala tashano wadahadalka yagiina waan isku afgarannay waxayna ka dhashay isku shirweynaha galmudug halkan lagu qabto ayay ahayd waxaa anagu u nimid madaxweynaha iyo annaga iyo xubnihii kaloo halkan joogo dowladdiisa ka mid ah la socday waan isku waafaqnay in shirkaas gogashaas ay dhigtay beesha gobolkan mudug magaaladan Gaalkacyo beesha saacad gaar ahaan ayaa dhigtay gogashaas waana la isla qaatay dabcan marka meel kasta oo annagoona hadda oranayn khilaafku waxaa ka jira oo keliya muxuu ahaa cali gacad casar oo ah guddoomiyihii ahaa iyo madaxweyne ku-xigeenkii labada aad sheegtay ma aha wax laba qof keliya maahan waxaana arrin caama wey la daaweynayo arrintooduna waxay ku dhex jiraysaa haddii alla idmo arrimahaas laga wada hadlayo oo tabashada la kala qabo daawadeeda ayay qayb ka noqonaysaa maahan markii ugu horeysay oo khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galo madaxda maamulka galmudug waxaa horay khilaaf siyaasadeed oo sababay in madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug ee ugu horeeyay cabdikariin xuseen guuleed uu xilka kaga tago isla markaana madaxweyne loo doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf balse mar kale khilaaf ayaa cirka isku shareeray waxaana taasi ku soo baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya taasi oo heshiisay xubnihii madaxda dowlad goboleedka galmudug ee isku hayay xilliga degmada Cadaado oo xarun u ahay dowlad goboleedka galmudug hayeeshee markaan khilaafka siyaasadeed ayaa ah mid faraha ka baxay kadib markii xubnaha sare ee madaxda maamulka ay midba midka kala sheegay in uu xilka ka qaaday. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo.